السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالada ugu adag noloshan ku soo mari kara waxaa ka mid ah inaad dareento garasho la'aanta waxaad u nooshahay iyo inuu khalkhal kaaga dhaco jeeyaaga nolosha waana mid ka mid ah dareenada ugu xanuunka badan ee aadamuhu la kulmo intuu nool yahay. xaaladaas yada ah waxa uu ciriiri ku imanaya nafsada qofkaas waxaan la soo darsahay walwal iyo cabsi mustaqbalka ka qabo waxaan caqligiisa ku soo dedegaya su'aalo xeedheer ku saabsan xaaladda uu ku jiro waxay taas ugu dambeyntii keentaa isku buuq ama niyad jab ay ka soo kabashadiisu adag tahay. balse warka farxaddeedu wuxuu yahay in waaya-aragnimada iyo aqoonta adduunka maanta taalla ay noo damaanad qaadayso ka gudbidda xaaladahaas oo kale ama hoos u dhigidda raadka nolosha kaga tegayso. si ay taasi u suurto gashana waxaan maanta muuqaalkeen labaad ee barnaamijka soo koobidda bugaagta ku soo qaadanaynaa kitaab xambaarsan magaca Ikigai oo sharixi doona waxa loola jeedo. waxaa buugga qoray laba qoro oo kala Francis iyo Hector oo labadu asal reer Spain ah. xog ku saabsan waxaad ka heli doontaa xaashada ugu dambaysa kitaabka waa niman u tafaxayteen reer galbeed wax ka baraan falsafadaha gaamure ee bariga fog balse marka hore ka qarsoonaa. waa buug yar ka kooban 123 bog balse aanad ka tegi karin hal faqrad oo ka mid ah macnaha uu sida aawadeed. waxaan ka hadli doonaa macnaha ereyga xag uu ka yimi saynu u isticmaalayno kadibna 10 xeer ee falsafada Ikigai. soo dhawow mar kale barnaamijku waxaa socodsiin anigoo Cabdiladiif fadhada nagu cusub tahay nagu soo biirada kanaalka soo garanaya soo kale barnaamijka la gare suu gaadho akhyaar kale oo badan. dadka degan jasiiradda Okinawa oo ah halka ay falsafadani ka timi waxay ku faanaa banaan dadka halka degan ee gaadhay 100 jirka ama korba u dhaafay da'da 100ka wadad aan jeclayn hawlgabnimada inta caafimaad qabaan. midkii gaadha 100 sano ayaa ka mid ah waxa la yiraahdaa wuxuu gaadhay Ikigai. jeclaanshiyaha hawsha iyo wax soo saariddu waxay kor u qaadaysaa nafsada qofka waxay noloshiisa ka dhigaysaa mid qiimo iyo ujeeddo leh waxaana dadka jasiiraddaas ku nooli u aaneynayaan waxaasoo wanaag ah inay ku gaadheen dhaqangelinta falsafadda Ikigai. Ikigai waa weer Japanese ah waxay iska saaran tahay laba kelmadood oo kala ah Iki oo macnaheedu yahay nolol iyo Gai oo macnaheedu yahay ujeeddo taasoo marka la isku daro noqonaysa ujeedka ama macnaha aad u nooshahay. waana falsafad ama istiraatiijiyad aad adeegsan karto si aad u jaangoyso jidka kugu habboon aad u noolaan karto. inta aan halka dhaafin ka muslim ahaan waxaa laynoo jirsiiyay caabudda Ilaahay hadafkeena ayuu noolahayna waa kaas bacda acuudu billahi min ashaytaani rajiim wamaa khalaqtu ljinna wal insa illa liyacbuduun. balse bulshada Jabaaniisku waa dad u badan malaaxido diinlaawayaal ah waxaana xiriirka ugu weyn ka dhaxaysiiyaan shaqada iyo liibaanta ama shaqada iyo farxadda. 2008 daraasad samaysay waxa caafimaadka jaamacadda Tokyo ay ku sameeyeen ama ay ka qaateen ka badan 50,000 oo qof kuna saabsanayd xiriirka nolosha iyo Ikigai ka dhaxeeya. ay ku sheegeen in dadka aan helin ama aan fahmin falsafada Ikigai inay ka cabanayaan shaqo la'aan, doobnimo, isku buuq ama xanuun maskaxda ku dhaca, caafimaad xagga jirka ah marka la barbar dhigo kuwa fahmay falsafada Ikigai. daraasadaas muhiimka marka laga yimaado waxa jira daraasado kale oo ka hadlaya kaalinta ay Ikigai ku leedahay isku dheelitirka hormoonada jirka gaar ahaan kuwa xakameeya xaaladda nafsiyeed ee qofka sida doominta iyo endorfinta. haddaba falsafadan waxay ku dhisan tahay ka jawaabidda 4 weydiimood oo aad u qoto dheer. weydiimahaas oo si aad uga falceliso ay ku gaarsiinayso fahamka Ikigai muddo kadib. weydiimuhu waxay yihiin weydiinta koowaad maxaad jeceshahay, weydiinta labaad maxaad ku wanaagsantahay qabashadiisa, weydiinta saddexaad muxuu caalamku u baahan yahay ama dad si kale u dhigo dadku adiga maxay kaaga baahan yihiin, iyo ta afraad oo ah maxaad ku helaysaa qabashada hawshaas aad qabanayso. afartaa weydiimood waxay soo hayaan 4 tiir oo kala ah hadaf, doonis, xirfad iyo waaya-aragnimo. afartaa weydiimood jawaabahooda oo lagu laray 4taa tiir ayaa sameeya waxa loo yaqaano falsafada Ikigai. ugu dambeyntii 10 xeer ee Ikigai waa 10 xeer oo looga baahan yahay qof kasta oo raba inuu dhaqan galiyo falsafada inuu sameeyo. waxay labada qore ku qorayaan safxadaha ugu dambeeya kitaabkooda waxaanan u dul istaagi doonaa qodob. xeerka koowaad noo qof fircoon hana hawlgabin. kuwa ka fadhiista marka tagay xabiyaha jeclaa inay sameeyaan waxay lumiyeen ujeedadooda nolosha taasoo sababtay lama horaan u tahay in la sii wada qabashada waxyaabaha qiimaha leh, caawinta dadka iyo qaabaynta deegaanka ugu wareegsan xitaa marka ay noqoto in la sii wada samaynta waxyaabaha qiimaha leh. xeerka labaad iska dhaaf degdega. in la degdega waxay lid ku tahay tayada nolosha sida leedahay mahmaahdu si tartiib ah u soco waxaad gaari meel foge. markaynu iska dhaafno degdega
nolosha waqtigu waxay yeelanaya macno cusub. Alcajalatu min ashaytaan. xeerka saddexaad, cuntada yarayso. Ha buuxin calooshaada, waayo in yar ayaa ka badan markaynu cimrigeenu dheeraada wax u cunayno. marka la eegaya xeerka 80% si muddo dheer oo caafimaad qabta aad u jirto, waxa waajiba inaynu cunno in ka yar intaynu gaajaysannahay halka aynu nafahayna dabirin lahayn. xeerka afraad, ku hareeree naftaada saaxiibo wanaagsan. saaxiibadu waa daawada u wanaagsan. halkaas waxaad ka helaysaa wada sheekaysi wanaagsan si aad u yarayso walwalka, isdhaafsiga sheekooyin ifinaya maalinkaaga, helidda talooyin, madadaalo. si kale haddaan u idhaahdo, saaxiibtinimadu waa nolol. xeerka shanaad, ilaali jidhkaaga. biyuhu way socdaan, waxaanay wanaagsan yihiin markay qulqulayaan iyagoo nadiif ah oo aanay fadhiisan. saasoo kale jidhka aad nolosha ku dhex jeexaysa wuxuu u baahan yahay dayactir maalinle ah si uu sii shaqeeyo muddo dheer. intaa waxaa sii dheer, jimicsi wuxuu ka qayb qaataa soo daynta hormoon naga dhigaya kuwa faraxsan. xeerka lixaad, badi dhoola caddaynta. dabeecadda farxeed maha keliya ta mid nasasho leh, soo kale waxay naga caawinaysaa inaynu saaxiibo samaysanno oo aynu abuurno deegaan saaxiibtinimo. xeerka toddobaad, dib ula xidhiidh dabeecadda. iyadoo dadka badankiisu ay ku nool yihiin maalmahan magaalooyinka, haddana waxaa aadamaha loo sameeyey inay qayb ka noqdaan dabeecadda. waa inaynu badanaa dabeecadda u laabannaa si aynu usoo jaajargalinno beetariyadeenna. qodobka wuxuu la jeedaa inay muhiim tahay in dib loo booqdo goobaha miyiga ah. yacni wuxuu leeyahay goobaha cagaarka ah, badaha, neecawda nadiifta ah waxay muhiim u tahay nafta bini'aadanka. saa daraaddeed waa inaynu kolba mar dib ugu noqonno deegaankeenii cagaarna ama miyigeennii. xeerka sideedaad, u mahadceli. mahadceli ku socota awiyaasha dabeecadda, taasoo ku siinaysa hawada aad neefsanayso iyo cuntada aad cunayso. mahadceli ku socota saaxiibada iyo qoyskaaga. ku socota wax kastoo maalmahaaga ifinaya, kaana dhigaa inaad dareento inaad nasiib leedahay, maxaa yeelay waad nooshahay. maalin kasta waqti ku qaado mahadcelinta, waxaanad arki doontaa in kaydka farxaddaadu kordhayo. xeerka sagaalaad, ku noolow ilbidhaqsigaas. iska jooji ka shalaynta wixii hore iyo ka biqidda waxa imaan doona. maanta ayaa waxaad haysato ee iyada ka dhig mid mudan in beri la xasuusto. qodobka tobnaad ah sidoo kale midka u dambeeya 10 xeer ee ikigai ayaa wuxuu leeyahay raac ikigai kuu gaarka ah. waxaa jirta doonisi xamaasada gudaha ka guuxaysa, taalanti gaar ah kaasoo macno siinaya maalmahaaga, kuguna riixaya inaad caalamka la wadaagto ilaa dhammaadka. haddii aanad garanayn waxa ikigai kuu gaarka ah yahay ilaa hadda, waxuu hadafkaagu yahay inaad daafaydo, sida uu leeyahay Viktor Frankl. ugu dambeyntiina waxaa idinkaga tegayaa geesinimada waxaa laynoo siiyey inaynu ku bedelno waxay waajib tahay bedelaadiisu. xikmaddana waxaa laynoo siiyey si aynu kala garanno midka bedelaadda mudan iyo ka aan mudnayn. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.